ardayda jaamacadda Nile ee magaalada Muqdisho ayaa maanta oo Sabtida difaacday buugooda qalin jebinta waxaa ku sugnaa goobta buug difacashada mas'uuliyiinta jaamacadda Nile iyo qaybaha kala duwan ee ardayda kuwaas oo ku faraxsanaa inay soo gaaraan heerka maanta qaar ka mid ah ardayda difaacanaysa buugooda ee jaamacadda Nile ayaa ka hadlay dareenkooda maanta. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waan salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jebinaysa Nile University farxad bay ii tahay anigoo gobol kale ka yimaaday inaan ku qalin jebiyo magaalada Muqdisho caasimadda ummadda Soomaaliyeed farxad gooniyana maanta way ii tahay special oo maanta buugan difaacanay ma sha Allah farxadda lama soo koobi karo. magacaygu waa Cabdimaalik Maxamed Ibrahim waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Nile University runtii maanta buugayga difaacday waa ku faraxsanahay waxaa ka mid ahaa ardayda ugu horeysay cyber security dalka ku barata fursadda jaamacadana siisay ku maasan tahay waxaan rajaynayaa insha Allah inaan guul ka gaari doono. Bismillahir Rahmanir Rahim magacaygu waa Cabdullaahi Cali Faarax Cali oo ka tirsan ardayda Nile University ka qalin jebinaysa sanadkan 2023 waxaan ka mid ahay ardayda maanta ku guuleystay inay difaacato buugga jaamacadda ee qalin jebinta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ku guuleystay difaacashadayda buugga jaamacadda sidoo kale waxaan u hambaleynayaa dhammaan ardayda igala qayb gashay difaacashadan oo ku guuleystay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo macallimiintaydii maamulka jaamacadda iyo waalidiinta iyo dhammaan asxaabta iyo cid kastoo jecelayd inaan heerkan soo gaaro. gabagabadii aadan Cabdullaahi oo ku hadlayay magaca ardayda ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in maanta ay difaacdaan buugooda qalin jebinta. waxaan difacnay maanta oo sabti ah taariikhdu ay tahay 20ka bisha shanaad qalin jebintii ugu horeysay sanadkan waxaan maanta difacanayo qaybtii full time ka ahayd insha Allah waana sii socon doontaa ilaa biri qaybtii online ka ayaa biri noo bilaabi doonto kuwaas oo kala jooga wadanka dibadiisa iyo dalka insha Allah runtii aad ayaan ugu faraxsanahay qalin jebinta sida wanaagsan ee noogu bilaabatay insha Allah waxaan rajaynaynaa wanaag inay noogu dhamaan doonto biri. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waa dufcadii saddexaad oo ka qalin jebisa jaamacadda Nile ee magaalada Muqdisho. jaamacadda Nile ayaa ah jaamacadda kaliya ee dalka ku taala ee looga haray barashada tiknoolajiyada. Hanad Cali Guuleed, Goobjoog, Muqdisho. dadweynaha waxaan cod dheer ku leeyahay khatar baa gurigaaga dhex taala adiga khatar kugu ah caruurtaada khatar ku ah hantidaada khatar ku ah waxayna leedahay shuruuc bay leedahay curfi bay leedahay waa laga yaabaa inaadan adigu aqoonin qof yaqaana u waco iska hubi guriga aad degan tahay koronto si sax ma ugu jirtaa qalabka aad isticmaalaysaa qalab sax ma yahay fiilooyin guriga ku jira fiilooyin sax ma yihiin qalabka aad soo gadatay laftigiisu qalab sax ma yahay aad waxaan dadweynaha ugula talinayaa oo ku celcelinayaa in ay bahashaasi waa khatar saan horena u oran mana oran kartaan mana arki kartaan mana maqli kartaan sida kaliya lagu ogaan karaa waa in la taabto haddii la taabtana waa lagu dhimanayaa ama waa dhaawac fadlan iska hubiya cid taqaana u waca dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina korontada la idiin gelinayo ka warhaya qalabka la gelinayo tayadiisa ka warhaya ganacsatada waxaan kula talinayaa warna ilaahay kaga baqa dadka qalabka aad u keenaysaan oo waxaan laga quustay ee aan dalalka ka soo saaray dalka ma ogola in laga isticmaalo ma ogola wax ninkii soo saaray uu diiday dalkiisa uu isticmaalo dalkeena keenina ka daaya